sanadka cusub sanadkan cusub ee January la sheegayo ugu horeyn Julius waqtigiisii baa loo dabaaldegay waqtiga ugu horeeya waa 45 BC ee loo dabaaldego waqtiyadii dhexe looma dabaaldegi jirin waqti dambe dib loo soo celiyay kalendarkani waa kalendar Roman Romanisku waa wathaniyiintii hore Juliusna waa boqorkoodii waa ninka bishan July la yiraahdo isku magacaabay boqorkii isaga ka dambeeyay Augustus bisha August la yiraahdo isku magacaabay bilaha kala qayb ka midina waa ilaahiye magacyadood March waa ilaah dagaalka ilaahul harbi bay March yiraahdaan waa ilaahiye magacyadood qaybaha dambana waa tiro September October November December Sep waa bishii toddobaad Oct waa bishii sideedaad Nov waa bishii sagaalaad Des waa inagan decimaliya waxa sheegnaa waa bishii tobnaad oo haddama xal 12 ka dhigay maxay soo wada weydaariyay boqoradan bay soo wada weydaariyay Julius baa 760 maalmood xagga hore kaga daray oo January February ku soo darsaday kadib Gregory Boobkii la oran jiray ayaa Julius waqtigiisii bish sanadka waxa la xisaabin jiray 365 iyo 0.24 waxa la ogaaday in xisaabtaas ay qaldantay qaladkaasi wuxuu keenayaa sanadkiiba dhowr minute 12 minute inay soo baxaan oo equinoxiska marka la xisaabiyo solar systemka inuu qaldan yahay saadaradeed ay waxay yiraahdeen hadda waxay xisaabiyaan ay 365 iyo 0.25 1500 iyo 280 markii la marayay ayuun baaba 10 maalmood hore loo soo guuray bishu iyadoo afarun baa la yiri may saaka waa 14 October khamiis oo bishu afar tahay jimcihi ku xigay ayuma la yiri waa khamiistani waxa weeyaan waa khamiistii 14aad bay ahayd maalinta ku xigtaana 15 bay noqonaysaa ingiriiska diiday 200 sanadood in ku dhadhow buu diidanaa ingiriisku 1752 meelahaasi ayuu sana iska aqbalay marka isaga waqtigiiba uu ku sii kordhayo 12 maalmood buu isagu guuray meelahaasi ala kulli xaal waxa ay gaala walaaqday hore iyo dib u guurtay sanamadeedii waxeeda u baxsatay maxaad ula dabaaldegaysaa adiga kaaga xidhan maxaa ciid ka dhigay habay yaraatee ciidahaasi wax ay shariicada islaamiga meel kaga leeyihiin ma jiro su'aasha isweydiinta le markaa waxay tahay waxaan oo dhan fikradda ka dambaysa ilaahay wuxuu quraanka inagu leeyahay al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina ودينتا وردين لما يستربا إلهينا لي مسلمين تدبتا نقبصتي وحويان multicultural society markay la noolaadeen bulsho noocyada tira badan isugu jirto diimo badan haysta may kala garanin waxay qaadan lahaayeen iyo waxay ka tagi lahaayeen ee wax walba way iska qaateen waxyaabo dadka aynu la wadaagi karnaa jira say culimada qaar badan ay qabaan مثلا ninka gaalka ah hadii ilmo u dhasho wala tahniyadeyn kara dib maaha waqti aan ahayn Christmasyadeen waxa kan wala siin kara xal ilaahdaaye hadiyad wa hadaaya wala ga qaadan kara amma tahniyada ku saabsiisan ciidaha ilaahaga inuu dhashaan kuugu tahniyadeynaya de ma banaana Christmas day inaad ku tahniyadeysaa ma banaana wax macsiyo ku jira inaad ku tahniyadeyso idan tahniyadka la sameeyo ayaamaha wathaniga ama ayaamaha diimaha kale ee haystaan Christian Yahuud waxay doontaa ha ahaato ma banaana la hadiyad bixinteeda banaanayn ولا تهنية دام بنان سا جماهير العلماء وبدنيهين ولا كدقن كدام بنانين
dhaqamada iyo diimuhu waa inay kala socnaadaan waa inaad dhaqan gaaleed ka mid noqonin qof muslimaa tahay mumayaz bini aadamku wuu isgumaystaa laakiin waa inaad xor ahaataa oo diintaada aad xor ugu ahaataa waxaan ku soo koobayaa wakhtigu uu kooban yahay waa inaynu kala garannaa maxaan qaadan karnaa oo dadka kale ka qaadan karnaa iyo maxaynaan ka qaadan karin dadku waxa anfacale iminka kama qaato maalan synisisku anfac buu leeyahy way yaryihin dadka inta ka barataa laakiin inta dhafoorada xiirata ama surwaalka daldalooshata ama feedhaha qaawisata ama buruuko soo xidhata ama kabadhaadhe inta xumaha kaga daya waa xumuhu fududiyey saa loo qaataa xumuhu waxba wakhti badan uma baahna caawaad intaba samayn karaysa ama waxa qiimaha leh waxay u baahan yihiin wakhti iyo juhdi iyo dhidid idan wixii la yidhi ka qaatana kama qaadanno wixii la yidhi ha ka qaadanina waynu ka qaadannaa waa caqli foorarka muslimiinta ku dhacay wixii la yidhi soo qaatana waa diideen wixii la yidhi ha ka qaadaninana way ka qaadanayaan idan ayuha alaxiba waxaan ku soo koobayaa uun maalmahani ama wataniinimo ha ku salaysnaadaan ama diimo kale ha ku salaysnaadaan maalmo muslim iyo diin islaam ku salaysan maaha sidaa awgeed in laga qayb galo sinaba uma bannaana sala allahu calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasallam